axdiga iyo sharciga islaamka maxay qabtaa marka tusaale ahaan haddii waa maxay qaybta ugu muhiimsan ee ku jirta sharciga ama khilaafka diinta islaamka runtii horta saddex qodob oo xasaasiya jirta waxaan u baahanahay dadka Soomaalida inay saddexdan qodob ay si fiican u dhageystaan laana saddexdan qodob oo axdiga uu tilmaamayo uu sheegayo ama uu wato waa saddex qodob oo si cad ah ama si toos ah uga hor imaanaya diinta islaamka midda koowaad waxay tahay article 9 ana article 9 muxuu leeyahay macnaha ciyaalku waxay awood u leeyihiin in ay bedeshaan ama ay doortaan diinta u baahan yihiin anaga waxaan nahay dad muslim ah waxaan nahay dad haysta macnaha diinta islaamka ku dhashay ku weynaaday in dadka loo siiyo Joyce oo la dhaho wali ciyaal iyagoo ah macnaha waxa awood u leeyihiin diintan doontaan inay qaadataan completely waxay ka hor imaanaysaa diinta islaamka ilmahana waxay ku dhashaan waxay tahay diinta islaamka sida xadiidka nabigu leeyahay kullu mawludin yuladu ala alfitra macnaha qof walba oo dhasha oo ciyaal ah wuxuu ku dhashaa waa diinta islaamka alfitra fa abawaahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi laakiin waalidiintooda ayaa waxay ka dhigaan ama Christian ama ma fahamtay majuus ama wax lamid ah calaa taal diinta ka bixiyaan marka haddii dadka loo siiyo ciyaalka macnaha Joyce in diinta ay rabaan ay qaataan dabcan taa waxay keenaysaa in dadka Soomaalida ah lagu dhex talaasho lagu dhex abuurto dad aan diinta islaamka haysan maalmahana social media aad iyo aad ayay ugu badan tahay dad badan oo ku doodaya inay ka bixin diinta islaamka dad badan oo campaign wada in dadka diinta ay ka saaraan dad badan oo gadaal laga riixayo si ay dadka muslimiinta ah ee Soomaalida ah ay diinta ay uga saaraan waxyaalaha ugu waaweyn runtii maanta gaalada ama wadamada gaalada caqabad weyn ku noqda waxaa ka mid ah in dadka Soomaalida ay yihiin dad isku wada diin ah isku wada dhaqan ah isku wada af ah isku wada caadooyin ah marka taas waxay ku haysaa in badan culays aad u weyn wana sababtii loo kala qaybiyay marka hadda waxa loo sameeyay waxay tahay software oo waxay waa hardware waxaan ka wadaa in si xoog ah oo maquunin ah lagu soo galo la qabsado la gumaysto laakiin hadda waxa lagu sameeyaa waxay tahay waa duulaan xagga maskaxda ah waa duulaan xagga dhaqanka ah waa duulaan xagga macnaha loo isticmaalayo dad iyaga kamid ah oo diinta laga saaray ama ka baxay in dib loogu soo celiyo marka qodobkan wuxuu albaabka u furayaa in dad badan oo Soomaaliya ay ku dhiradaan in diinta ka baxaan ama kuwii diinta ka baxay dibadda joogay ay awood u yeeshaan inay campaign sameeyaan ciyaalka dhexdooda marka qodobka isaga ah waa qodob xasaasi ah waa qodob aad iyo aad muhiim u ah waa qodob aysan marnaba suurtagal ahayn inuu ka dhex shaqeeyo waddankeena Soomaaliya iyo dadkeena Soomaalida ah taas waa mid ka mid ah qodobada lagu diidan yahay arrintan iyada ah qodobka labaad waxay tahay waa article 21 ana article 21 wuxuu ka mid yahay qodobada ugu waaweyn ee lagu diidan yahay arrintan iyada ah article 21 muxuu leeyahay macnaha wuxuu leeyahay wuxuu ka hadlaa age-ka macnaha qangaarka waxa lagu qangaraa ayuu leeyahay waa 18 because waxa halkaas social media dad aan wixii akhrin thaqafadooda aysan xooganayn aqoontooda xooganayn oo macnaha iska hadlaya kaliya bas marka qodobkan laga hadlayo lagama hadlayo kaliya guur waxa laga hadlayaa wax walba oo khuseeya dhanka macnaha maxaa lahada nidaamka in qofka uu ku qangarayo oo qof majruur ku noqonayo inuu wax gato inuu ganacsi samaysto inuu ma fahamtay guursado inuu wixii dadka waaweyn looga baahnaa oo dhan waxay ka bilaabanayaan 18 islaamku muxuu ka qabaa dhinaca qangaarka diinta way cadaysay markay timaado qangaarka wiilashu waxay ku qangaraan 3 shay gabdhahan waxay ku qangaraan waa 4 maxay kala yihiin مثال wiilashu waxay ku qangaraan waxay tahay midda koowaad inay tusaale ahaan calaamadihii lagu arko calaamadaha maxaa ka mid ah inay biyo ka yimaadaan si walba uga yimaadaan ama isagoo jiifa ama isagoo soo jeeda ama isagoo wuxuu doonaa doontaa noqoto taas waa midda koowaad midda labaad waxay tahay in timaha hoose ay ka soo baxaan timaha hoose hadday ka soo baxaan dabcan waxay tusaysaa ma aha xaadi waxa lagama hadlaayo waa timaha hoose adag waaye so taa waxay tusaysaa in ilmaha ama wiilka qangaar uu yahay uu ka baxaayo macnaha ciyaalnimadii midda saddexaad waxay tahay oo wiilasha macnaha ay ku qangaraan in calaamadaha haddii ay heli waayaan 15 sano middan oo ah timaha hoose ka soo baxaya macnaha waxa loo soo daliishadaa waxay tahay duulaankii bani qurayda uu ku qaaday nabiga calayhi salaatu wasalaam markii laga adkaaday macnaha wuxuu dhahay hala fiiriyo wiilashooda wixii timaha hoose ay ka soo baxaan kadibna waxa lagu xukumay waa dil leanna meel dagaal ahayd dagaalkan wuxuu leeyahay sharciye nidaamyo u gooni ah
soo meesha waxaa ka muuqanaysa haddii ciyaalka timaha hoose ay ka soo baxaan in ay qaangaar yihiin oo xukunka macnaha lagu ogaayo midda oo 15 ah xadiidkii waxaa tilmaamaya ibnu cumar radiallahu canhuma in loo diiday macnaha dagaalkii uxud inuu ka qayb galo laakiin dagaalka alkhandaq in loo ogolaaday wuxuuna leeyahay laanna waxaan gaaray 15 sano oo ahaa sinul buluuq ama waqtiga qaangaarka soo taasna waxay tusaysaa 15 sano inuu qaangaarayo soo haddii wiilkii biyo ay ka yimaadaan ama timihii hoose ay ka soo baxaan before 15 waa qaangaar haddii ay waxaasoo dhan uu heli waayo laakiin da'da 15 ay noqoto waa qaangaar gabdhaha intaa maxaa u heliya saddexdaa waa kala mid صح timihii hoose biyihii ka imaanayay 15 sano intaa waxa uu heliya waxay tahay in ay caado hesho haddii caado hesho macnaha iyadana waa qaangaar waaye wixii cibaado ah waajib ay ku tahay salaadii zakadii haddii xoolo ay leeyihiin maxaa lahdaa soonkii wixii kaloo waajibaadka ahaa dembigan oo loo qoraya taa waa sax waaye laakiin what about dhanka macnaha guurka laftiisa macnaha waa loo ogol yahay inay gursadaan dadka qaarkood qalad ay fahamsan yihiin qaladka waxa waaye haddii qofka uu qaangaaro ka soo qaad 15 sana ku qaangaartay adoon adiga waxa ku qaangaartay qalido laakiin أنا يقصد هذا أنا يقصد هذا laakiin haddii qaangaartid macnaheedu ma aha in guurka isla waqtiga waajib kugu noqonayo waa matter of choice aday kugu xiran tahay awoodii ma leedahay baahidii ma qabtaa ma ka bixi kartaa mas'uuliyadaas macnaha waxaa la fiirinayaa shuruudaha kale ee ku gadaaman macnaha qofka inuu guursado ama inuu arooso macnaheedu ma aha wiilka 15 ayuu gaaraye waa in loo guriyaa gabadhii 15 ay gaartaye ha loo guriyo kasoo qaad hadda Soomaaliya inta da'da ku aroosta ma badna wax yar waaye dadka badankooda waxay ku aroosaan waxay tahay waa 18 19 20 dibadda hadday timaadaan waa ka sii weyn yihiin marka dadka qaarkood macnaha waxa isaga khaldan ama ay aaminsan yihiin waxaan sax ahayn macnaheedu ma aha islaamku inuu leeyahay gabadhii waa qaangaartay waa in qasab loo guriyamay waa matter of choice tan kale dadka qaar waxaa ka maqan macnaha thaqaafadooda oo diinta islaamka iyo xitaa midda maadiga aad iyo aad ay u hooseysaa waxaan ka wadaa waxay tahay las macnaha compare macnaha diinta islaamka iyo dhaqamada wadamada hadda aan joogno ka soo qaad hadda UK aan joogaa iyo wadamada kale badankooda waa la mid waa age-ka lagu qaangaaro macnaha waa 18 sano haddaa ka yartaa 18 sano ma guursan kartid mamnuuc waa illegal laakiin maxay leeyihiin haddii 16 aad tahay waxaa samayn kartaa waa age of consent macnaheedu waa maxay in qof kale waxaa la samaysid aad la galmooto waa lagu ogol yahay صح ogow ma guursan kartid 16 aad taa ka soo qaad 17 aad taa ka soo qaad shahwa ku haysa waxba u baahan tahay 18 ma tihid you can marry mamnuuc waa illegal waa laakiin wax ma samayn kartaa yes waa samayn kartaa laakiin islaamku muxuu leeyahay haddii aad qaangaarto shahwo ay ku hayso waxaa lagu ogol yahay inaad guursato laakiin waxaa lagu diidayaa inaad dembi samaysid marka labadaa markaa fiirsid miisaanka aad saartid ka ayaa saxa laana islaamku wuxuu sameeyey protection gabadha familkeeda og wiilka familkiisa og meelay degan yihiin oo laisku yaqaanaa laakiin waxaa la samaynayaa in si official ah oo sharciyan ah la isugu xalaaleeyo laakiin marka fiirisid sharciyadan gaalada ah hadda iskuulka markaa fiirisid gabdhaha waa report saxa waaye macnaha badankooda waxay ku waayaan macnaha bikranimadooda ama gabarnimadooda waa 13 years oo badankooda waa rekob iyaga ay sameeyeen waaye macnaheedu waa maxay gabadhaadii wadamada hadda aan joognan ka hadlayaa oo iskuulku aaday ayaa waxaa laga yaabaa in meelaha ay wax ku samayso adiga adan ogeyn oo ay dhahdo waxaan leeyahay saaxiib soo taa macnaheedu waa maxay waa khalad ay samaynaysaa laakiin ma guursan kartaa dee qof ku keensato ay dhahdo qofkan aan wataa ii guri ma u ogashahay may lan waxaa ku qabanaya sharciga ku qabanaya marka meesha waxaa ka muuqanaya sida islaamka u ilaaliyey ciyaalka iyo sida wadamadan ay u faafinayaan xumaanta laana in lagu diida guurka xitaa marka lagu leeyahay waa samayn kartaa ma kala qaadayaan macnaha ma nin iyo naag mise naag iyo naag mise nin iyo nin marba hadda adiga ogasha waa samayn kartaa laakiin islaamka dabcan wuxuu leeyahay qawaaniin sharciyu leeyahay oo in laga booda ay khalad ay tahay marka anaga islaamka ilaahay una siiyey runtii waa naseexa waaye aniga midaan diidanahay waxaan saxna ma aha gabadha in la qasbo sometimes waxaad arkaysaa social media gabar da'yar macnaha 15 16 17 oo lagu qasbayo nin aad iyo aad uga da'weyn which is wrong macnaheedu ma aha in anagoo dhan taa aan taageersanahay macnaheedu ma aha macnaheedu ma aha in islaamku uu leeyahay weeye waa sax waaye oo taasoo kale hala sameeyo laakiin waxaa laga yaabaa inta badan waxyaalahaas sababtoo dadka qaar soo dhahaan
dadkan qurbaha ka tagay mise maabi odayo maasha Allah jeebku buuxo familku tagaya so dhaqanka Soomaalida waxay dhahaan qof ku dhali karo ayaa ku dhaqi karo and then as long as you know familkeeda habi laga dhigay gabadhan okay ku tahay maxaa diidayo malak waxa loo shardiyaa mataqana guurka gabadha habi ku tahay marka aragtid macnaha gabadhii oo oynaysa oon habi kun laana bani aadan taa waa arkaysa macnaha gabadhii waa gabadh daayar ninki waa nin aad uga weyn aabaheeda tama hawaheed ayaa laga yaabaa inuu la da'yahay gabadhii waa oynaysa waxa loo baahnaa ma banaan tahay diiniyan haddii aabaheed uu bixiyo diintu waa qabtaa waa banaan tahay laakiin iyada ma diidi kartaa waa diidi kartaa aan xukuumadda waxaa looga baahan yahay waxyaalaha noocaas oo kale kaysaska noocaas oo kale ay dhibaatada keenaysa ee gabdhaha la qasbayo laanna qofkan waxaa ku xukuntay waa xabsi daa'imi oo kale ah laanna qof uusan habi ku ahayn qof uusan rabin qof uusan diyaar u ahayn ayaa ku qasbaysaa iyada xaqeedii meel oga dhacaysaa marka waxaa loo baahnaa xukuumadda in ay dejiso guidelines dadka noocaas oo kale ah ee waalidiinta ah ilmahooda qasbaya gabdhahooda qasbaya ku qasbaya qof aad iyo aad uga da'weyn in loo sameeyo macnaha in la ilaaliyo ciyaalka xaqooda waaba lacalla haddii ayada ku keensato ay keensato ninka weyn taas haddii ay tahay ogolaasho waa banaan tahay macnaha diiniya lama dhahayo nin weyn nin gabadha hadduu ka weyn yahay ma guursan karo waa guursan karaa as long as ay is ogol yihiin haddii gabadhii loo soo bandhigo oo la dhaho ninkan aan ku wadnaa waa ka da'weyn yahay laakiin diyaar ma tahay iyadii habi ay ku noqoto ay ogoshahay then taas waa ogolaansho waaye lagama hadlayo taas oo kale laakiin waxa laga hadlaa waxay tahay gabdhaha badankooda la qasbayaan gabdhaha inta badan social media ama la soo dhigo macnaha online badankooda waxaa muuqanaysa in la qasbayo laakiin ma been xishoon salaya macna you know you can't, I mean of course tasawur aragti mugta tusaale haddaad waxa dhahday oohinta well hablaha qaar markay guursanayaan qafkay rabaan way ooyaan adiga lagu ooyay khadiyo lagu ooyay hadda sameeyo midooy marka ooyinta hadday tahay mid oo farxad ah mid oo wanaag ah mid oo rabitaan ah waad fahmaysaa sax qaabil leedahay laakiin ooyinta hadda aan u jeedna badankeeda waa ooyin diidma ah marka ooyinta diidmada ah in gabadhii lagu qasbo aabaheed ama familkeeda lacag ay ka qaataan oo nin aan aysan rabin lagu qasbo runtii taa damiirka ma ogolaanayo ninka laftiisana I believe inuu meel uga dhacayo dignitygiisa of course qafan ku habi ku dignitygaada waxa meel uga dhacaysa waxay tahay gabar yar oo aad dhali kartid ama wawa u tahay aad qasab macnaha ku aroosayso advantage ka qaadanayso ma fiicna aad gabdha waxay heli kartaa majuur ah wanaagsan oo nolosha kula fahmaya why do you want macnaha someone oo da'da ah ma banaan tahay haddii iyada ogashahay yes laakiin diidmada ka hadla aniga laakiin macal dad waxaa jiro I don't know wadama aan joogna khilaacan dad waxaa jiro waaweyn laakiin ka helo dadka yararka so marka marsdhii karaa maadaama odayaal mise diinta dad waxaa jiro ku dhex dhuumanayo oo fursad ka faa'iideysanayo hadda wadamada aan joognaa way dhacdaa qof waxaa arkaysaa like 70 years old oo guursanaya maybe 25 30 waxay dhahaan sugar daddy way dhacdaa laakiin ogolaasho waa ayaga is ogol gabadha lama qasbin ma oynayso iyada raadsatay waxay doontaa noqoto laakiin waxaa ka wada yacan dad waxaa jiro waaweyn laakiin ay ugu baxdo dadka carruurta yararka ah so marka odayaashaan eetii waaweynka dadka waaweynka guursanaya with no disrespect baa qof guursanayo ma dhihi kara ayakana dabcan wuxuu u faa'iideysanaa janis oo diinta iyo jeebkooda su-aashada marka waxaa ka wadaa macnaha dadkan waaweyn waa dad ka hela ciyaalka da'yar soo maaha ma isdhihi karaa marka because wallaahi aniga niyaddooda ma ogin laakiin haddii waddada saxda ay maraan ka soo qaad gabadhii waalidkooda ka doonteen gabadhii waa loo bandhigay ninkii waa la tusay way aragtay waa ogolahee dhahday markaasoo kale ma ka hadli karno laanna ogolaansho waaye ayaga ku heshiiye waalidkina waa ogol yahay waana meher xalaal ah waaye laakiin mid aan ka hadlayna aan diidanaha waxay tahay macnaha nin aad uga daaweyn oo lacag wata oo aabihii lacag siinaya gabadhii la qasbayo iyadoo aan ogolayn oo ninkii saa loogu guurinayo taasaan ka hadlaynaa okay waa tusaale bur isway let's say nin weyn ayaa xoog guursaday gabar yar oo lacag haysato tusaale waa haddii ka warar ma qaf weyn awoon say naag weyn qof dumar weyn haddii wiil yar guursado lacag leh so waa dadka same reaction ma ahan yacni ma dhahayaan oo wiilkan yarkay guursatay laakiin haddii ninka oday weynka oo gabadh yar guursado waxa la oo gabadha yartu guursaa la dhahaya sababta mataqaanaa sideeda markaa filisaytaa si caadi ah oo naturally gabdhaha badana way jecel yihiin qofka da'weyn macnaha way adagtaa haddii aragtid gabar guursanayso qof idala da'a badankooda waxay aroosaan qof ka weyn 5 sano 10 sano xitaa maybe ka badan ayay guursadaan
soo taas waa wax caadi ah ma aha dhaqanka Soomaalida kaliya xitaa dhaqamada kale laftooda ku arkaysaa laakiin the opposite in gabadha macnaha gabar weyn ay guursato wiil da'yar ma dhacda badan ma dhacdo ma aha kaliya dhaqan Soomaali xitaa dhaqamada kale ma ku badnaa laana sida caadiga isa soo jiidashada rag iyo dumarka waxay u badan tahayba waa qaab noocaas oo kale Ilaahay u sameeyay in gabadhaha ay raadiyaan mowqif stable ah mowqif majuur ah mowqif macnaha iyaga macnaha iyada nolosha la qaybsan karto wayna ku leeyihiin macnaha qof oo isku da'nahay oo aan isku xanaaqayno ama aan fahmaynin waxaan ka jeclahay qof iga weyn xoogaa oo degan oo majuur oo hayn kara marka taa way dhacdaa adduunka dhan ka dhacdaa ma aha kaliya Soomaaliya qof da'yar ah way dhacdaa waxaan haday ogol yihiin iyaga heshiis ku yihiin waa caadi waa xalaal waaye laakiin badan ma dhacdaa badan ma dhacdo well I think fursad haysta dadka faa'iideysan kara of course adara inuu soo aaro ilaha u baneeyay hadii gabdhaha ama inta ay joogeen ama Soomaaliya ha joogeen meel kale ha joogeen hadii ay ka hesho ama ay jeclaato macnaha wiil ka da'yar isagana ogol yahay okay ay tahay ay ku heshiyeen in ay saroosaan dabcan waa caadi waaye laakiin hadii saama sameyn lahayd ya caadi wada shaqa ma bee be honest isfahanay waay isfahan waano jirto bes waaye waa malena jirka waa joogaa marka qodobka aan saddexaad oo runtii la diidan yahay oo kamid ah qodobada hadda aan ka hadlayno waxa kamid ah article 24 ana article 24 muxuu leeyahay haddii mithaal aad samayso adoption ka soo qaad ciyaala ku samaysa adoption adiga soo qaatay si aad u korsato macnaha waxa awood u leedahay in magaca ka bedeshid magacaada siisid ka soo qaad waxa lagu dhahaa Khalid qofka waxa la dhahaa maybe Ali waxa u bixinaysa Ali Khalid magacaada u qaadanaya ina dhasha amal laakiin islaamiyada ma banaana in qofka aabihiis waxaan ahayn lagu waco macnaha ma banaana islaamku wuxuu qabaa wax loo yaqaan takaful macnaheedu waa maxay ilmaha waa qaadanay waa korinay laakiin magaciisu wataa adiga wixii xuquuq ah loo baahnaa ayaa qofkaas siinaysaa waxbarashadii hoygii caafimaadkii wixii la midka ahaa laakiin magaca wuxuu wataa magaca aabihiis taas islaamka waxa la dhahaa waa an-nasl waa la ilaaliyey qofka abtirsiyihiisa aad u muhiim u yahay xitaa gabdhaha wadamada hadda aan joogno waxay qaataan magaca ninkooda ay qaataan islaamka ma ogola gabadha aabaheeda ay wadanaya in magaca ninkeeda ay qaadataa waa mamnuuc waa illegal waaye marka taasna way ka mid tahay waa article macnaha 24 so saddexda qodob oo ugu muhiimsan oo lagu diidan yahay lagu diidan yahay ahdigan waa saddexda qodob laakiin saddexda qodob ma la sameyn karaa in laga bixiyo may macnaha waa sideeda ku qaado dudub ama ku diid waay marka runtii waana saddex qodob xasaasi ah oo aad iyo aad muhiim u tahay oo ay ku haboon tahay in si fiican looga fiirsado marka ma kula tahay dadkan oo odayaashan wadanka sulka odayaasha iyo maamooyinka ku jiraan maadaama meesha dumar badan ku jira qontay ku leeyihiin marka waxaan ay ansixiyeen ma ka fiirsanin aniga markaan dhageystay doodaha qaarkood ay ka hadlaayeen ay ka doodayeen waxa ay muuqanay gaab aad u weyn gaabka wuxuu yahay inuu marka hadda MB lagu leeyahay MB waxa loo baahan yahay wax xildhibaan macnaha waxa xil u ka saaran yahay wadanka dhan inuu qofka xildhibaanku yahay qof la socdo waaqaca inuu yahay qof diinta islaamka wax ka fahamsan inuu yahay qof aqoonta maadiga wax ka fahamsan inuu yahay qof aqoon leh oo inuu wax akhriyo baaritaan sameeyo loo baahan yahay waxyaalaha aadiga yaabi waxa kamid ah dadka qaarkood oo ansixiyay MB-yada ahaa la weydiiyey qaar wariyaasha ay weydiiyeen qaar ku dhahay oo masaas u ahaa maba aqrinba sidoo ku ansixiyay marka sidoo ku ansixiyay waa cajiib ma ogtahay dadkaas wax loo dhiibtay waxa arkaysaa dadka qaarkood meesha intay soo istaagaan ku dhahaya wariyada ansixiya bahalka ilmahana ma u diidan tihiin dumarka ma u diidan tihiin ansixiya ma aha ma aha debate ma aha macnaha in laga hadlayo nidaamkan muxuu wataa macnaha maxaa dan noo ah maxaa laga hormaanaya laana markii debate ay timaado waa in qodobkaada miiska soo saartaa ma ogtahay luqadda noocaas oo kale waa luqad shacab ah waaye ma aha luqad oo baarlamaan looga dooda ma aha marka aniga waxa ay muuqanaysa kuma xadgudbaayo laakiin in uu jiro macnaha gaab aad u weyn oo dhanka thaqaafadda aqoonta both dhanka diinta iyo dhanka maadiga intaba marka waa inaan dadka aan ka dhiganayna MB laftooda aan ognahay qualitygooda iyo waxqabadkooda intuu leegyahay waa faa'iidada ay leedahay selectionka aan faa'iidada ay leedahay 4.5 yes unfortunately because waxa laga yaabaa qofkan waxa lagu soo doorto waxay tahay ma aha qualitygiisa ma aha aqoontiisa ma aha khibradiisa ma aha waxqabadkiisa ma aha kartida uu leeyahay waxa lagu soo doorto waxay tahay 4.5 waxa kale lagu soo doorto waxay tahay